السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلام يا شدة دم الصوماليات كان قد دعونيسه أنت قدالنا قد دعون دون تبع السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كان مانتي تو ماركتي دولة نمذا الصوماليات iyo maaragtay aqoontii gabdhaha kaga hadlayna naseex oo salaam hay'adda waxaan kaga hadlaynaa dawladnimada federaalka khaladka laga fahmay iyo maamul xaafadeedyada iyo mataqaanaa aqoontii gabre iyo qaran dumiska iyo dhibaatada hayso oo dhan arrintaas ayaan maanta kaga hadlaynaa waxaa loo mataqaanaa anagu ummad Soomaaliyeed baanu ahayn ummad mataqaanaa sharaf leh iyo dhaqan leh oo maaragtay han iyo qablahan ahayn umar waa ku salaamayada waxaa nala jir lahayn dawladnimo ummad maaragtay taariikh dhigtay inaan ummadda Soomaaliyeed ay gaartay heer lala yaabo maaragtay habkii dawladnimada lagu soo dhisay dawladii kacaanka iyo bilowgeedii adduunka oo dhan oo aad ula yaabay ummaddu ay gaartay inaanan banaanka wadan isku filaaday dhaqaalihiisa iyo ciidan ahaan ciidankii Afrika ugu xoog weynaa aan helnay aan muddo yar oo kooban dhulkayga ku qabsanay taariikhdaas ajaa'ib kale iyadoo ay soo martay ayaa waxaa dhacday in mataqaanaa qaran dumis magacana la sheegta laakiin hodan bixi oo salaamaya abay inaan nala ku soo daayay shamso waad salaamaya dhamaantiin in nala ku soo daayay qaran dumis muuqaalka iyo magaca nala wadaaga laakiin cadaawo adeeg haya waxay ahayd heer maaragtay hadba meel adeer daahir oo salaamay ay dawladnimadii naga duntay dawladnimadii markay naga duntay waxa dhacday cadawgii ay dawladdu xargaha ku haysay oo qaranka laga ilaalin hayay oo danaystayaashii damiirlaawayaashii cadowga adeegsanayay iyo cadowgii baa ishelay ummadii Soomaaliyeedna waxaa u dhaxa labada dhinac isaga ceshay cadowgii gumaysi oo adeegaha ahaa iyo gumaysigii oo dhaqaalihiisii wata dhibaatadaasi dawlad la'aanta aan ka dhaxalnay ayaa waxaa ka mid ahayd jaashuusnimo lagu faanayo oo lagu public la soo istaagayo oo la leeyahay hebel dawlad hebel ay wadata oo nin inta ummadu yeerta anaa la wataay hal la taageero iyo in la yiraahdo reer hebel tuugoodi bay wataan tuugeena maxaan u diideynaa yacni dulli lagu tartamayo codka seeyahay si fiican ma la maqlayaa si fiican ma la maqlayaa ha ii soo qorbilis si fiican la maqlayaa arrintaasi waxay dhashay ay cadawgii iyo gumaysigii ummadda isu kaashadeen waxay dhashay in shakhsiyaadka damiirka lahaa oo ummadda hormoodka u ahaa oo garaadka iyo caqliga iyo garashada u saaxiibka ahaa la taargad gareeyo ama mid diin sheeganaya hadilo ama argagixisa muuqatiya qarsoon hadisho inay ummadda Soomaaliyeed mataqaanaa dagaal dhinac kasta lagu soo qaaday heer waxaa la gaaray ummadii Soomaaliyeed lagu xisaabtamay inaysan dib u soo noqon karinin heer waxaa la gaaray ninka mas'uulka ah oo madaxa ummadda ugu sareeya uu ku faanahayo oo uu mataqaanaa ummadda Soomaaliyeed uusan ka raadsanaynin kalsooni laakiin uu kalsoonida uu cadawga iyo gumaysiga ku qabo uu faanahayo waana nasiib darro dhacday bay ahayd tusaalena waxaa noogu filan doorashadii u dambeysay ruqiyo waa ku salaamaya doorashadii u dambeysay dad baan Soomaalidaba ka dhex kaambeyn garayn oo isku haleeyay inta ay gumaysiga ehel mataqaanaa ka haystaan xoog iyo kaalmada ilaa wadamo sirdoonkooda ay xamar soo dhex degeen ayaga oo shakhsi u doodahaya oo u ololeynaya nasiib darradaasi dhacday ummadda Soomaaliyeed ma ahan ummad waxa weeye gumaysigu haddii uu ku lugo'ay oo ku sirmay tigreega ku sirmay oo aan xisaabta ugu darsanin dhuuxa iyo gobonnimada iyo kartida iyo adkeysiga ummadda Soomaaliyeed leedahay laakiin marka doorashadii u dambeysay waxay noqotay garoon loo baneeyay cadawga iyo gumaysi u kalkaalka iyo ummadda Soomaaliyeed ee wadaniyiinta ah ee sharafta leh waad garan kadhaan sirdoonkii Itoobiya xamar soo dhex degay heer uu iska dhigay aqoon joornaaladooda inay warbixin ay cilmi baaris ka dhinkaas oo dhan raaliga ahaada qanacas la iga soo waxay waa mahadsantiin
gumaysigii uu isku dayay in ummadii Soomaaliyeed wadaniyiintiina ay halkaa usoo istaageen gudo iyo dibad la isku xirmay laba hadaf bay kala lahaayeen gumaysiga iyo gumaysiga kalkaadku shakhsiyaad bay wateen ummadda Soomaaliyeedna waxay wadatay xalima sacdi waa ku salaamahaya ummadda Soomaaliyeedna waxay wadatay madaxweynaha maanta Ilaahay ha noo xifdiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waad la socoteen dagaalkii yaa ku guuleystay cadawgii marka wacdi wadana waa ku salaamay ummadii Soomaaliyeed markii ay ku guuleysatay dagaalkii oo doorashadii ay xaqiiqan noqotay inuu Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kusoo baxay madaxweynaheena maanta cadawgii oo dhan wuxuu isugu tagay sidii loo kufin lahaa dowladnimadu ceel bay ku dhacday ceel bay ku jirtay ceelka marka xariga marka la soo shubahayo inuu maalin kasta mid lala istaago iyo toorey sidii loo goyn lahaa waxay ku guuleystay xukuumadda Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Farmaajo in maalin kasta ayadoo mid la goynhayo inaysan cadawga u suuragelin dowladnimada inay dhexda ka jabto hal liicdo waa soo qabtaan waa la soo isku dayaan ha gooyaan waa la soo celiyaa dowladnimadayadii maanta waxay maraysaa meel Ilaahay looga mahadnaqo adduunka oo dhan ka marqaati kacay heer aan laga soo noqosho lahayn inay gaadhay cadawgii marka maanta maalinba meel buu ka soo dhacayo waxa isugu soo ururay maamul xaafadeed ku doodahaya federal system ummadda Soomaaliyeed bal federal system aan qiimeeyno federal system ka adduunku ku dhaqmo waa wax qabadka oo la qaybiyo iyo awoodda oo la qaybsado tusaale dowladda federaal ugu sareysa oo dhexe awoodda ugu sareysa wadanka weeye qayb ay shaqada leedahay gobolka qayb buu leeyahay magaaladuna qayb bay leedahay halkaas waxaa ka baxaya maamul xaafadeedka waayo maamul xaafadeedku gobolna ma ahan magaalana ma ahan degmana ma ahan waa wax la aruurshay oo qabiil ku salaysan taasaa meesha ka baxaysa shaqooyinka uu marka gobolku lahaan jiray waxay ahayd inuu mataqaanaa magaalooyinka gobolka dhaqaalaha uu dowladda uga soo qaado u qaybiyo barnaamijyada magaalooyinkuna ay dhistaan shaqooyinka hoose daadejiyaan sida iskuulada jidadka xaafadaha waxyaalaha looga baahan yahay isbitaalada waxyaalaha hoose loo soo daadajiyo sidaas daraadeed meeshaas markii aan dhahno magaalo gobol baa ku xiga degma ku xigta gobol baa ku xiga maamul xaafadeed meesha kuma jirahayo sidaas daraadeed waxa markii ummadda Soomaaliyeed dowladnimadeedu isku istaagto systemka hadda dhisan oo meesha ka baxaya waa maamul xaafadeedka sababta oo ah maamul xaafadeedka meesha wuxuu uga baxayaa door kuma lahan dowladnimada caafimaadka qabta door kuma lahan tusaale siinaya waddankayagu wuxuu ahaa 18 gobol 18 gobol qabiil kuma salaysnayn deegaan bay ahaayeen laakiin maamul xaafadeed qabiil buu ku salaysan yahay qabiil buuna ku dhisan yahay aan tusaale baa idin soo qaadaya 18 gobol haddii 18 iyagii gobol oo federaal ahaan tusaale soo qaadaya gobolka mudug wiilka xardheere jooga iyo kan jiriiban jooga iyo kan hubyo jooga iyo kan garacad jooga iyo kan goldoob jooga dan baa ka dhaxaynaysa gobolka mudug bay isku noqon hayaan sidaas daraadeed gobolka mudug waa gobol Soomaaliyeed oo aan qabiil ahayn buu noqon hayaa laakiin Puntland marka la yiraahdo qabiil baa ku noqon haya that's why maamul xaafadeedku uusan door u lahayn meesha ku lahayn wuxuuna ugu dagaalamahayaa oo dowladnimada uga hor istaagahayaa inuusan meesha asagu ka bixinin tusaale kalaan idin soo qaadahaya markii la yiraahdo gobolka Galgaduud waa gobolka Galgaduud waad garanaysaa degmada Cawda Balambal Gurceel iyo maaragtay isku dan baa ka dhaxaynaysa qabiilna kama muuqanayo meeshaasi Hiiraan waad u jeedaan qabiil kama muuqan gobolada Soomaaliya qabiil kama muuqanayo laakiin maamul xaafadeedyada dhisan qabiil baa lagu dhisay gumaysigii iyo agoontii gabrana weeye waxaan aad iyo aad ula yaabay ninka maaragtay ismagacaabay oo isku caanushbay oo Jubbaland jooga ayaa maalintii dhaweyta khudbadii uu jeedinayay wuxuu ku soo qaatay wuxuu aad ugu raftay dastuurka ha la ilaaliyo wuxuu aad u eedeeyay dowladda Itoobiya war gabre muxuu ahaa soo gabre Itoobiyaan ma ahana inuu dowladda Itoobiya eedeeyo waxa uga fiicnaan lahayd inuu Oromada eedeeyo oo dhaho Tigreegi baan u xiisna waayo Itoobiya waxa isbedelay qabiilo iyo system baa isbedelay maamulkii Itoobiya Eritrea u talaabsaday Eritrea
oo afawaag uu dadkiisa ku yiraahdo xornimada Eritrea ma dhamaystirna ilaa ma Soomaaliya cagaheeda isku istaagto buu u talaaba waxaas oo dhan waxa weeye waa agoontii gabre waad u jeedaan waxa maanta ay maamul xaafadeedyada dawladda federaalka lugaha ku dhagan dastuurka hal la ilaaliyo war dastuurka ay sheegayaan muxuu yahay dawladda federaalka ee shaqadii waxay ku haystaan wasaaradda arrimaha dibadda ay lahayd waxay ku haystaan shaqadii wasaaradda gaashaandhigga ay lahayd dawladnimadu ay lugaha ku dhagan yihiin waayo rajo waxay ka qabaan mar labaad dawladnimadu inta burburto inuu gabro kaleeto ay adeega u noqdaan ilaa han malahane dawladnimada Soomaaliya hana qaaday ma fahmi karaan aad jacaanka waa ku salaam dawladnimada Soomaaliya oo hana qaaday oo adduunka la xisaabtamaysa masawir ma samaysan karaan fishin ma abuuri karaan dawladnimada Soomaaliya hana qaaday inay qayb ka ahaadaan waayo waxa ay la qabsadeen oo ay ku soo barbaareen oo siyaasadda xoogga ay ku yeesheen baa wuxuu yahay gumaysi oo adeega iyo gumaysi kalkaalka marka sidaas daraadeed dawladnimada Soomaaliya oo adkaatay ma aqbali karaan shaqadii ay lahaayeen ba ahayd iskuul la dhis iyo isbitaal la dhis tusaale wuxuu soo qaatay wuxuu Jubbaland cunaqabatayn baa lagu hayaayo gabdhaha foolan hayaa isku dhinta shaqadiisay ahayd inuu gabdhaha isbitaal u dhiso gabdhaha inuu isbitaal u dhiso shaqadiisay ahayd shaqada maamul xaafadeedka ahayd maxay shaqadaadi tahay marka haddii aadan Kismaayo gabadhi meel ay ku umusha ka dhisinin maxaad u joogtaa maxaad isku dayaysaa inaad 9 sano hor fadhiday aad isbitaal u dhisin sidee baad isugu dayi kartaa inaad mar labaad aad ama saddexaad aad ummadii si maaragtay xaaraana inta meesha ku marorsatid aad ku joogtid wuxuu fahmi laayahay shalayta gabra Xasan Sheekh ku garba qabtay waayo Xasan Sheekh laftigiisa gabra ka amar qaadan haya laakiin Xasan Cali Khayre iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo cidna kama amar qaataan aan Ilaahay abuurtay ahayn oo adoomada u ahaayeen intaasuu fahmi laayahay qofka laba nooc buu siyaasadda ku soo galaa qofna mabda iyo hadaf buu ku soo galaa oo uu mabdiisa iyo warkiisu cad yahay oo waxaan baan aaminsanahay khasaare iyo faa'iido waxaan ka helaan aan ku dhinta ku noolaado qofna wuxuu yahay munaafiq laakiin qiimeyn kara jawiga iyo caqliga meesha u socdo marka waxa aan labadaas midna ahayn baa maamul xaafadeedyada ka soo baxay hadday caqli leeyihiin raggii gabra abrahayeenis ahayn bay garan lahaayeen saacadana si tartiiba bay u banayn lahaayeen Sharif Sakiin baa kamid ah waa munaafiqnimadiisu waxay ahayd inuu caqligiisu wuxuu ku filaa inuu qiimeeyo wacyiga iyo jawiga socdo sidii ahayn buu garta waa kii xogaagiisi inta qaatay tartiib ceeb la'aan iska baxay okay waxa kale oo markaaseeto ah dawladii hore la shaqeeyay oo nidaamkaasna ku survive garoobay haddana dawladnimada waqtiga la qabsaday dad noocaas ah jira dadkaasi waxay leeyihiin inay isfahmeen systemku sidii inuusan ahayn dad aan caqli lahayn baa jira oo fahmi waayay inaan meesha gabra xukumin meesha Xasan Sheekh oo sheegada inta la qabto warqadan saxiix la dhahayo aysan joogin Kenyada uu u qabo inay u khasbi doontaa ay tahay mid dawladda Soomaaliya ku khasbi weyday maxkamadda ka tanasul hodan wadana abaa waa ku salaamay macaan inay ku khasbi dawladda Soomaaliya ku khasbi weyday maxkamadda ka soo celiyo miis la fariisay ma dawladda Soomaaliya ku khasbi kartaa Axmed Luxulaysta hal daayay waa maya waa aad iyo aad bay caqli yaraan aad iyo aad arinta ka muuqata marka ummadda Soomaaliyeed ma federal system waxaa noqon kara 18 gobol mid kasta dawladda dhaqaalihiisa ka soo qaato degmooyinka u daadajiyo degmaduna tuulooyinka u daadajiso sidaas daraadeed nolosha ummadda hoos loo halkaas dawladda dhexe dhaqaalaha inta laga soo qaado hoos loo soo daadajiyo baahida bulshadana inta hoos laga qaado kor dawladda loogu sheego baahida jidha taasa maamul federal la yiraahdaa dawladda federaalka ha lagu qabsado maaragtay arrimaheedii gaarka ahaa siyaasadda arrimaha dibadda dhismihii ciidamada dhaqaalihii dejinteedii miisaaniyadda waxyaalahaas ha lagu qabsado waxa la yiraahdaa dhaqan gabre laga bartay gabrana meesha banee waxaa la yiraahdaa dhaqan tigreegiina meesha ka baxay dabayl baa socota dabayl wadaniyadeed baa socota Soomaalinimo soo noolaansha socda waxa weeyo aad iyo aad qofka aan jawiga iyo wacyiga socda la qabsan karin wuu dhumaa wuuna ku dhumahayaa laakiin abwaan Jamaal Bilaa waa ku salaamaynaadeen waxa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed wacyiga iyo jawiga socda oo wadaniyada ah oo soo noolaatay iyo sharafta iyo guusha iyo nasriga muuqda inaan gacmaha isqabsano
maamul xaafadeedyada cimrigoodii waqtigooda uu ka gabagaban yahay sidaan haddii ilaahay ma usii gabagabayn lahayn dowladnimada soomaaliyeed oo ilaahay maaragtay maanta gaarsiiyey heer adduunkii oo dhani soomaaliya iyo wax la qabsigeeda loo tartamahayo waad u jeedeen norway baa lacagtii deynta ku yabooda inay bixinayso ingiriiskaa mid kaleta bixiyey bangiga adduunkaa bixiyey adduunkii oo dhan wejigaasuu ka samaysanhayaa war maamul xaafadeedkaanow weji waxaad ka samaysataa inaad tiraahdo maaragtay dhiiggiiba ummaddan badbaadshe oo wixii horeyta hala ii dhaafo dembiga sidaas oo kale lagaga yaabaa ummadda soomaaliyeed waa ummad nadiifa oo daacado inay iswada cafiso marka sidaas daraaddeed aada ayaan idiin salaamhayaa waxa weeye ummadda soomaaliyeed waxay u baahan tahay inaan gacmaha isqabsano dowladnimadeena garab istaagno ama ka nax ama ku farax ummadda soomaaliyeed codkeedii buu farmaajo maxamed cabdulaahi farmaajo ku joogaa codkeedii maantana si toos ah ugu soo ceshan doonaa ilaahay idankiisa gumaysiga iyo ukalkaalkuna waqtigu waa ka gabagabo soomaalinimo no compromise maantayto wax dambe oo la isbarbar dhigahayo oo dowladnimada soomaaliyeed loogu gabanhayaa ma jiro dhalinyaradii soomaaliyeed oo tolbeelayaa reer hebelhay dagaal lagu soo gelin jiray maanta wacyigoodii waa kora dowladnimadaa ku qabiila qarannimadaa ku qabiila mustaqbalka dhismahayabaa ku qabiila taasaana muuqata dabayshaas caafimaadka qabta oo ilaahay naxariistiisa nasrigiisa ku keenay cid celi ka dhan ma jirto duruufihii caalamiga ahaa oo dowladnimada soomaaliya baaba iyo dhibaatada ku hayay waa ilaahay waa isbedele waad ujeedaan super power islaamaha maanta joogta wax laga baqhayo iyo wax laga maaragtay cid looga leexanayo midna ma jirto dowladnimada soomaaliya waa toostay waa istaagtay annaguna haddaan soomaali nahay gacmaha isqabsada gumaysiga iyo marka dadka desperate-ka ah oo aan rajada lahayn siyaasadeed oo halkaa inta soo fadhiista cayda soo qorahaya wax macnaa oy leeyihiin male ha lagu arka iyo magacaaga ha lagu sheegay ka taha calool xumadaas iyo naxdintaas ha fiirsado soomaaliya waa midooda waa israacday waa guulaysatay waana idin salaamhayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh